maanta oo ay bishu tahay bishii saddexaad 12keedii 2025 laguna guda jiro bishii Ramadaan ee barakaysnayd ayaa dufcaddii afraad lagu qareemiyay magaalada Ceeri Gaabo ciidamadii madaniga ah lagana dhigay ciidan qaran waxay u dhacday sida tan qaramaynta dufcadda afraad in badanna imika way idin sugaynay oo bacadka aanu taagnayn waxaanu diyaar u nahay ciidamada iyo waayeelka iyo waxgaradka iyo maamulka degmada tan ee Fadhigaab oo ka tirsan degmada Garadag waxaanu diyaar u nahay inaanu ciidankana wareejino gacmo furan idinku soo dhaweyno dhammaantiin arinta ciidanka qaranka horaan uga warnay in ciidanka laga raro ciidan beeleed ama ciidan madani oo lagu wareejiyo ciidanka qaranka waa arin lama huraana waa arin maanta aan Soomaaliland ka maarmayn inaynu qaran u guurno oo madani ka guurno oo qabiil ka guurno oo dalka dhismihiisa aynu ka qayb galno annagu deegaankan haddaanu nahay mar walba diyaar baanu nahay waana idin soo dhaweynaynaa kuma kala qaybsanin kuma kala jabnin ma diidanin ma shakisanin mid dibad jooga iyo mid guda jooga iyo askariga la qaramaynayo iyo waayeelkeeda intuba diyaar waxaanu nahay maanta inaanu baabuurta iyo ciidankaba aanu wareejino oo gacmo furan ku wareejino dhammaantiin waxaanu leenahay ku soo dhawaada degmada Garadag afaafkeedii oo aynu runtii saaka halkan ku qaramaynayno ama qaramayntii la waday ee ciidanka qaranka magaalada Fadhigaab waxaanu runtii aad uga mahad celinaynaa iyadoo ay tahay furu tahay runtii degmada Garadag waxaanu uga mahad celinaynaa jaranka iyo saraakiisha kale la socda iyo hawlaha qaranka ee runtii ah qaran baanayna deeqa ee runtii qabiilnimo deeqo aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa marka xigta aad baan soo dhaweynaynaa arrinkan runtii waa arrin loo baahnaa waa arrin waqti ugu haboona ku soo beegmay insha Allah waxaynu deemaraynaa haddii gabagabadii mar xagga ka soo bilaabmay oo Garadag la soo gaaray inuu sii soconayo xagga loo sii ururinayo ayuun bay la tahay aad baan malaadii mar saddexaad waftiga ballaaran ugu mahad celinayaa iyo gudoomiyaha gobolka Sanaago isna mar walba heegan waa arrimaha gobolka aad baan idin soo dhaweynayaa kullu insha Allah taa beddelkeed waan uga fadhinaa madaxda sare ee gobolka waxaan halkan yana aad uga mahadinayaa xildhibaanada degmada Ceelfoyn oo shaqo adag ka geystay halkan oo maxay ahayd shaqo badan ka qabtay ciidanka isku dubariday hawl fiican ka qabtay iyo dhammaan sida Siciid oo kale sida ayaan le dhammaan raggii shaqeeyay aad baa mahadsantiin waa la qabnaa mahadnaqaanu la qabnaa soo dhaweyntaanu la qabnaa teatar kasto ay leeyihiin macnaa masjidkeena inaan ku salaanaa baan la qabnaa marlabaadka waxaan idinku soo dhaweynaynaa deegaanka Fadhigaab oo aan ku diyaar galanay dabayaaqadii qaybtii hore waa tii la qaramaynta la qaatay qaybtii harsaday gaadiidka iyo ciidanka oo aan ku diyaar galanay nagala wareegtaan war badan ma yaalo maanta waa soo dhaweyn iyo wixii ay laga guddoontaan labadaas shay qule weeye qaranka in loo guuro qaran ciidamada la qaramaynayo ee dhalinyarada ah inaad ku dhimato xaquuq la'aan oo dagaal ku jirto iyo adoo xaq leh oo magac leh oo darajo leh oo mishaar leh oo dawo leh waxay way kala fiican tahay marka waxba idin kordhay deegaankana waxba u kordhay ninka maanta la qaramaynaya xaq iyo xuquuq buu qaranku yeelanaya laakiin markuu madaniga ahaa kuma lahayn laakiin maanta kasoo nin waliba ciidanku dhow taagan yahay difaaca dalka maantada wuxuu leeyahay xaq iyo xuquuq buu ku leeyahay ciidanka qarankuna ninka ka dhinta mushaharka lagama joojiyo madaxweynuhuna 4 jeer buu ciidamada u ballan qaaday inuu u kordhiyo mushaharkooda waxqabad baan idinka doonaynaa deegaankan oo deegaan ballaaran waana deegaanka ugu dayacan dalka ceelal buu baahan yahay magaalooyin waaweyn baa jira oo Dhooma iyo Laastomaariya ay ka mid yihiin oo Oomanaa baa jira gubankaas oo dhami ma laha MCH iyo heltibasyo ma laha waxaan kaloo aad ugu baahannahay aan doonaynaa inaan uga dhawaajisaan waxaan u baahanay iskuul boodhana deegaankan ma laha iskuul boodhana dadku wax ku dhigto dadkuna dan yar buu badan yahay runtii
ciidamada madaniga ah taliyaha ciidanka qaranka maalintii horraysa sheegay duruuf baa lagu aasaasay isla duruuftii baa maantana abaalgudkoodii looga dhigay inay xaq iyo xuquuq helaan anigu khaasatan maadaamaan ahay madaxii amniga gobolka u sarreeyey ciidankan maanta la qarameeyey oo runtii ah ciidankii madaniga ahaa ee gobolka ka aasaasmay ee ugu horreeyey aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa dishibiliinkoodaan ka mahadnaqayaa waxaan ka mahadnaqayaa wakhtigii wanaagsanaa ee aannu soo wada shaqaynay iyo sida aannu ammaanka gacanta isaga siinaynay baan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa haddeer waxaynu joognaa degmadii fadhigaab fadhiisinkoodii waan ka soo rarnay waxay qayb ka ahaayeen ciidankanaan la qarameeyey mudana taliya dakhli kordhinta gobolkay qayb ka ahaayeen gaadiid badanoo sharci darro ah oo banka mara bay soo duwi jireen oo wasaaradda keeni jireen si loo cashuuro shaqadaas qaranka ay u hayeen iyo mid kale oo badanoo taa ka sii badanba aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa deegaankan aan ka soo jeedo salaadiintu hogaaminaysa Suldaan Siciid hogaaminaya wuxuu noqday deegaankii koowaad ee ciidanka madaniga ugu horwareejiya maantana waxaynu joognaa fayskii labaad ee deegaanka taa waxay ku muujinaysaa in deegaanku uu ballaaran yahay ilaa Ceergaabo ilaa Garadag uu wareejiyey ciidan fara badan iyo gaadiid fara badan waxa kale oo uu noqday role model waxa loo yaqaano wax ku dayasho mudan buu noqday suldaanku wuxuu yahay suldaankii ugu horreeyay ee ku dhawaaqa Somaliland inay ciidanka madaniga wareejinayaan nasiibkii hoodada la isku dhaafay ilaahay subxaanahu wa ta'aala tiisu uu aqbalay gobolkiisana gabagab ku jira annagu sidaan horeba u sheegnay ciidamada madaniga ah saacadda aan la wareegno waxaynu ugu yeelanayaa xuquuq iyo xaq la mid ah ciidamada qaranka xaq ay leeyihiin kii 30 sano ku jiray iyo kan maanta la wareegnaa isku xaq bay noqonayaan wuu helayaa xuquuqda asaasiga ah ee uu leeyahay askariga ciidanka qaranka sidaas aawadeed maanta waxaanu deegaanka kala wareeganaa dafcaddii labaad ee ciidamada madaniga iyo gaadiidkoodii oo gabadhida qoryu saaran yihiin ah iyo imkaaniyaadkii kale ay ciidankaasi adeegsanayeen sidaas aawadeed halkan waxaa noo yaallaa waa inaanu la wareegno ciidanka ugana mahad celinno deegaankan noo bilaabay qaramaynta ciidamada madaniga ah